wax badan oo aadan ka ogeyn xayawaanka awoodda badan ee maroodiga. Maroodiga oo ah xayawaan weyn oo awood badan Ilaah ku manaystay kuna nool dhulka kaymaha leh, isla markaana leh dabeecad wanaagsan oo uu bini'aadamku kula noolaan karo, ayaa leh mucjisooyin aanay la wadaagin xayawaanaadka kale. Marka koowaad, maroodiga waa xayawaanka ugu culus xayawaanada, wuxuuna miisaankiisa gaadhaa 6,350 kiilogaraam. Dhirirkiisuna waxaa lagu qiyaasaa 4 ilaa 5 mitir. Ku darso oo ilmaha yar ee markaa dhasha maroodiga waa 91 kiilogaraam, wuxuuna ka bilowdaa 1 mitir. Gacanta dheer ee uu leeyahay maroodiga waxay u tahay san, kuma eka urin iyo neefsasho oo keliya, ee wuxuu u isticmaalaa cabitaanka iyo jaridda dhirta ee uu afka hoose ugu gudbiyo. Sawaxan cod aad u dheerna way leedahay gacanta. Maroodiga wuxuu wax ka maqli karaa fogaan dhan 8 kiiloomitir. Abid maroodi la miisaamay culayskiisa ayaa gaadhay 10,886 kiilogaraam. Dhagaha waaweyn ee maroodiga kuma eka maqal ee waxay kaloo sameeyaan nidaam u shaqeeya sida qaboojiyaha oo kale. Waxayna qaboojiyaan dhiigga maroodiga marka uu lulayo isagoo jidhka intiisa kale gaadhsiiya. Cimri ahaan maroodiga noloshiisa waxay u dhaxaysaa 60 ilaa 70 sano, wuxuuna cunto ahaan u isticmaalaa maalintii 136 kiilogaraam. Waddamada Afrika uu kaga nool yahay ayaa ah 37 waddan oo ah waddamada saxaraha ka hooseeya, wuxuuna jecel yahay dhulka hoodka ah ee dhirta badan isla markaana ah cawsley. Dhanka xuduudaha wuxuu aad u joogaa waddamada Namibia iyo Mali, halka Aasiyana uu ku badan yahay dhulka roobka badan ee Hindiya, Nepal iyo meelo kale oo bariga Aasiya ka mid ah sida dalka Thailand. Maroodiga wuxuu leeyahay jidh dareen badan oo xitaa haddii dhaqsi uu jidhkiisa fuula uu dareemayo. Maroodiga wuxuu ilmaha uurka ku sidaa wax ka badan inta xayawaanaadka kale ay sidaan, waana wax ku dhow 22 bilood. Maroodiga waxa uu u socdaa qoys yar yar, mararka qaarna ilmaha si jamac ah ayay u nuujiyaan. Waxaa la yidhaahdaa gacanta maroodiga waxay leedahay 100,000 oo murqo kala duwan, kuwa oo uu u isticmaalo urinta, cabitaanka, qaadashada, soo jiididda iyo neefsashada. Maroodiga ku nool Afrika wuxuu leeyahay 2 farood, halka kuwa Aasiyana ay leeyihiin 1 far, waxayna ku leeyihiin halka ugu dambeysa ee gacanta dheer ay kaga xidhanto. Maroodiga wuxuu ka kontaroolaa dhammaan jidhkiisa dhagaha, sidoo kale waa calaamadda muujisa alarm marka ay horay u socdaan. Cilmi baarayaal ku xeel dheer maroodiga ayaa sheegay in maroodiga uu baran karo wax kasta oo lagu tababaro, wuxuuna noqon karaa waardiye lagu kalsoonaan karo. Maroodiga oo ah geesi aan baqan ayaa waxa uu aad uga baqaa shinnida. Dayaab ma lahan abuurista Eebbe, maxaa yeelay isagu waa awood badane wax walba samayn kara. Daawade, maxaa kaaga baxay warbixintan cajiibka ah ee ku saabsan maroodiga? Inoogu reeb fikirkaaga qaybta kommentiga. Mahadsanid.